وكبريا أني إسكاكي داف محاكاسمي قالي أديغا خالد كاكشا متقانا أنيغا حناقسن أيا هاتن هرتي ذا كوغو أركي وكبريا أنيغا هرتي إنا قفني آتن كو أركا ما بجعلي إسكالي مركا واحد إيسو كرديني سيد مالهان sanooyin ka hor dadkoo idil farxad ayaa ku noolaayeen laakiin markay soo dhex gashay naagtaaniiti dadkoo idil way baabi'isay qof walbana ehelkiisa xataa wuu waayey hadda fiiri gabadhaaniiti maskiinta qalad ee gashay ma lahan laakiin fiir noloshay ku jirto yaraanteeda nolol aad u xunaya soo martay weynaanteedana aabbaheeda ayayba weysay aniga midaaseeti qalad ayaa u arkaa gabadha masaakiinta nolosheeda inay burburto ma ahan la anaga wax waa samayn karnaa xaakimayaasha jiyaankan waa la hadli karnaa waa inaa wax walba u soo laabtaan waa inaa nafsad ahaanteeda ula kulmaa xaakimka dhaqso adiga kaama aqbalayaan maxaa yeelay qalad ayaa gashay laakiin aniga waa samayn karaa way ku saameyn kartaa waa in ayada la badbaadiyaa orad aad jawaabtana soo hel waa in la kulmaa xaakimka uma gudbi kartid adiga waxaa lagu dhiibay mas-uuliyad aad u weyn waana khiyaantay waana ka soo bixi weysa mas-uuliyaddaas ayadana ma aadan dilin aniga waa ku khasbanaa inaan sameeyo tan ayaanay ugu kaliftay sidoo kale xaakimku wuu ogaan karaa aamus been ayaa sheegaysaa aniga sidaa u caddeeyo runteeda maxaa sameeyaa oo kaleeta aniga aamus ayada waxay igu caga juglaysay inay dilaysa ayada hal wato keliya ayaa ii furneed ayada waxay ahayd gabadhayda xaakimka jiyaankiishiya wax walba oo u yaala jiyaankiyaasha ayaa waxay tahay inay badbaadiyaan dadka aniga waa qirsanahay qaladkaa galay qaladkaaseydin wax ayaa igu kalifay adiga hal naf oo keliya inaad badbaadisid maa dadkoo idil baxar u kelisay adiga naxariistaada ma ahan inaad dadkoo idil baxar ku kelisid si kastee naxariistaada u badan tahay waxay ahayd inaad ka tanaasushid waxa gabadhaada lagu ilowsiiyey ayaa waxay tahay inaad adiga marnaba aan naxariisanin aana jixin naxariista maxaa ka qaldan waxba laakiin naxariista qaar waxay kaa fogaysaa dadka inaad badbaadisid adigana shaqadaada ma ahayn naxariis gabadhaada waa lagaa dheereeyey
si mar walba qalbigaaga uu u soo kari rajo iyo raadin gabadhaada raadinaysid. Jayaankisiya waxay ahayd gabadhaada darteeda inaad ka tanaasulshid wax kastana aad u qabitid dadka taftooda. Waxay ahayd dadka inaad badbaadisid inaad u istaagtid ma ahayn gabadhaada. haddii dad kala badbaadinayo hal qofood maa baxar loo gelinayaa. Si aad hal qofood u badbaadisid miyaa dadkoo idil baxar u gelinaysaa adna? ma ogi aniga inaad ii ogolaanaysin iyo in kale, laakiin aniga waxaa rabaa inaad hal wax oo keliya codsado, waxaasna wax kale maahan. aniga waxaa rabaa in gabadhaneeti nolosheeda dib loo soo dhaliyo. aniga ma rabi inaan aniga aabbaheeda noqdo, maxaa yeelay qof kale inuu aniga darteeda uu dhibaatoodo ma rabi. gabadhaasna waxaa rabaa inay dib u soo dhalato, waxaana rabaa nolosheeda inay hesho farxad, famil iyo aabbo iyo hooyo si fiican u jecel. ma rabi aniga inay aniga igu loko'do. waad heshay jawaabta. waxaa keensaa mashiinka nood. gabadhaasna mashiinkaaseeti keliya nolosheedan dib ayuu u soo laabanayaa. intuu shaqadaas socdana ha u ogolaanin shayddaamada inay gasho, ayadana dib ayay u soo dhalanaysaa. meeshan waay wadada. way soo socotaa, soo carar. yaa aniga la'aantay bax. shan orod bax. howsha laguu dirana si fiican u qabo, ayadana badbaadi. shayddaamadaana niima soo gudbayso. waayahay. lacala haddaa dhinto adiga ma murkee. adigoo dadka badbaadinaya haddaa dhimatid aniga ma laga yaabo inaa murko, laakiin adigoo cadowga dhawarka aadinaya haddaa dhimatid waa murkayaa.